kulan wanaagsan daawadayaal Iiraan oo war culus ku dhawaaqday iyo waliba wasiirkeeda arrimaha dibadda oo goor dhaweyd ka dagay wadankaasi Pakistan haddaba halkaasi maxaa lagu karkarinayaa tabinteena caawa ayaan ku hayaa Iiraaniyiintu oo iyagu hub culus ka furtay dawladda Mareykanka wararkii ugu dambeeyay faahfaahinadii la helay ayaan ku hayaa warbixin sir ah oo muujinaysa in Israa'iiliyiintu iyadu gantaalada halista badan ee difaacyada cirka iyagu ay geeyeen dalkaasi Imaaraadka Carabta haddaba maxaa dhacay dagaalkii 40 cisho xoga ayaa idinkaga haya ma ogtahay khasaarihii ugu baanaa in Mareykanku la gaarsiiyay isla markaana Iiraaniyiintu dhacdooyin yaab leh ay sameeyeen intii dagaaladu ay socdeen warbixin sira oo la kashifay ayaan ku hayaa isla markaana aan ku soo gudbin doonaa oo ku saabsan qaabka Iiraaniyiintu ay u burburiyeen saldhigyadii Carbeed iyo waliba khasaare xoog leh ay u gaarsiiyeen nidaamyadii difaacyada ee Mareykanka sidoo kale tabinteena waxaad kaga bogan doontaan sawirro cusub iyo muuqaallo ay Iiraaniyiintu goor dhaweyd ka soo bandhigeen mid ka mid ah maraakiibta iyagu ay ku qabsadeen godoomintii dhawaan Mareykanku ku sameeyay Maribiyoodka Hormuz iyo waliba warar kale oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay iyo gobolka ilaalada kacaanka fariin diray iyo waliba ninkii Trump ahaa isna gacmihiisu waxba kuma jiraan laakiin waa uu hadlayaa soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan channelka subscribe saaro si share gare saaxiibadiina la wadaaga muuqaalka like ku dhiirigeliya aan ku bilownay wararkii ugu dambeeyay ee dawladda dalkaasi Iiraan ayaanu aadi doonaa isla markaana aan ka hadli doonaa ma ogtahay Iiraaniyiintu iyagu inay ku guuleysteen hub inay ka furtaan Mareykanka waxa la sheegay gantaalo lagu garaacay dalkaasi in qaarkood ay ahaayeen kuwa aan baqarxin markaa fariintan ayaa noqotay mid halis weyn ku ah dawladda wadankaasi Mareykanka maadaama gantaalo halis badan oo wadanka lagu garaacay Iiraaniyiintu ay u saamaxayso dib inay u farsameeyaan goor dhaweed oo maanta waxaa la sheegay ilaalada kacaanka wadankaasi Iiraan ay soo bandhigeen ilaa iyo 15 gantaal oo Mareykanka laga soo tuuray isla markaana ku dhacay deegaanka la yiraahdo Harmujaan ee koonfurta dalkaasi Iiraan Mareykanka ayaa lahaa laakiin maraakiibta Mareykanka iyo waliba saldhigyada bariga dhexe uu ku leeyahay ayaa laga soo tuuray waxaa sidoo kale ay ka qayb ahaayeen kumanaan gantaala oo yaryar oo la sheegay inay gacanta ku dhigeen dawladda wadankaasi Iiraan gantaaladan ma ahayn kuwa qarxay intooda badan waxa la tilmaamayaa inaysan qarxin 15 kaasi gantaal oo kuwa aad u culus isla markaana noocoodu la yiraahdo GBU iyo waliba PLU waana kuwa aad iyo aad markaa tayadoodu u sareyso isla markaana casri ah dawladda wadankaasi Iiraan ayaa waxay sheegtay inay gacanta ku dhigeen oo ay ku guuleysteen qolyaha miino baarista iyo waliba kuwa kale gantaalada ku shaqada leh inay goobihii ay tagaan oo ay ka qaadaan markaa gantaaladii isla markaana ay geeyaan goobo loogu talagalay in dib loogu sameeyo dawladda wadankaasi Iiraan waxay doonaysaa inay dib u furfurto isla markaana eegto oo ay farsamayso markaa telefishinka wadankaasi Iiraan laga leeyahay Press TV ayaa baahiyay sawiradan iyo waliba markaa warbixintan waxaanay leeyihiin dawladda wadankaasi Iiraan waxay ku guuleysanaysaa in ay gacanta ku dhigto gantaaladaasi ilaa 15 oo kuwa casriga oo aan qarxin Iiraan dib haddii ay u farsamayso waxay awoodaysaa in ay hub casri ka soo saarto waxaa la xasuustaa dagaalyahanada Xisbullah iyo waliba xitaa jiida Gaza gantaalo ku dhacay goobahaasi oo dib ay u qaateen kooxaha oo ay farsameeyeen ayaa dib loogu adeegsaday dagaalada kale ee xigay markaa wixii ka dambeeyay 2010 ilaa 2014 hadda Iiraan 15 gantaal oo casri iyo waliba kuwa kale oo yaryar ayaa gacanta ay ku dhigeen dib bay u farsameynayaan waxaanay rabaan in ay Mareykanka khasaare xoogan iyagu ay gaarsiiyaan dagaal dambe haddii mustaqbalka uu dhaco haddaba shabakada la yiraahdo NBC ee Mareykanka laga leeyahay wuxuu soo bandhigayaa warbixin sir ah oo muujinaysa xaaladda halista ah iyo khasaarihii xoogan ay gaaray dawladda wadankaasi Mareykanka warbixintan ayaa qaracan ku ah madaxda Mareykanka iyo waliba dhammaan dalkaasi wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in mar qura warbixinta markii la daabacay filanwa iyo fajac ay ku noqotay Mareykanka warbixintu waxay sheegaysaa in la burburiyay qaybo waaweyn oo markaasi kamid ah salgadii bariga dhexe uu ku lahaa
laakiin arrinta qaracanka lahayd taasi ma ahayn. qoraalkan aad arkaysaan iyo sawirkan ayaa mushkiladda ugu weyn ay ka timid, waana NBC News oo laga xiganayo diyaarad noocan ah oo F5 ah. waxaad ogtahiin in hadda la marayo F35 iyo wixii ka sarreeya, F22, F15, F16 iyo weliba kuwa la midka. Iiraaniyiintu iyagu waxay haystaan F5, waa kuwa hore oo old ah. sanadkii 1959 baa la soo saaray, waa diyaarad old ah. su-aasha la isweydiinayo waxay tahay, saldhigyadii Mareykanka markii ay diyaaraddan gaaraysay oo ay duqeynaysay, waxaa la tilmaamay dhammaan nidaamyadii difaaca ee cirka ee Mareykanku lahaa inay awoodi waayeen inay celiyaan. waa warbixin soo bandhigaysa isla markaana NBC News u daabacay. markaa waxaa leeyahay Mareykanka yaabbay ku noqotayba sida Iiraaniyiintu ay u awoodeen diyaaraddaasi inay markaa dhaafsiyaan dhammaan nidaamyadii difaaca ee Mareykanka. sarkaal xog ogaal oo Pentagon-ka ka tirsan ayaa la xigtay, waxaana la tilmaamayaa oo la xaqiijiyey dhammaantood burbur xoogan inuu ka muuqdo. weliba Iiraan ay gaarsiisay khasaarihii ugu weynaa iyo burbur baaxad leh saldhigyada Mareykanka. toddobaadyadii ugu horreeyay bayba ka baxeen baa leeyahay. warbixintu waxay sidoo kale intaa ku dartay diyaarad F5 oo Iiraan markaasay leedahay inay awooddo inay ka gudubto dhammaan difaacyadii cirka, isla markaana ay duqeysay saldhigyo Mareykanka oo ku yaala dalka Bahrain, dalka Kuwait iyo weliba kuwa kale. sidee bay ku suura gashay diyaarad la sameeyay sanadkii 1959 inay ka gudubto difaacyada casriga ee Mareykanka ee yaalay Kuwait iyo weliba kuwa kale ee Khaliijka? waa kuma duulihii awooday in goobahaasi isagu dhaafo isla markaana uu duqeeyo saldhigyada? sidoo kale diyaaradda miyay noqotay iyadoo nabad qabta? waa su'aalo la isweydiinayo ilaa hadda jawaabo badan aan laga haynin. laakiin maxaa keenay nidaamyada difaaca cirka ee lagu sheegay inay ahaayeen kuwa aad u xoogan inay noqdaan kuwa nugul, isla markaana diyaarad old ee waqtiyada la sameeyey ay markaasi awoodi waayaan inay markaa celiyaan ama burburiyaan? dhanka kale warbixintu waxay faahfaahisay burbur baaxad leh oo dalalka Khaliijka ka soo gaaray saldhigyada. tusaale waxay u soo qaadatay Imaaraadka Carabta saldhigiisa Al Dhufra. warbixinta waxay ku sheegtay khasaare baaxad leh inuu gaaray, gaar ahaan xarumihii bakhaarradii shidaalka, kaydadkii iyo weliba guud ahaan kaydadkii hubka oo goobahaasi lagu sheegay inay markaa Iiraan awooddo inay burburiso. Sacuudi Arabiya, saldhigga cirka ee Amiir Suldaan, waxaa la burburiyey bakhaarradii hubka, runway-gii iyo weliba goobihii la dhigayay diyaaradaha halkii shidaalku markaa lagu siinayay iyo kuwa kale. Qatar, Al Udeyd, gebi ahaanba raadaarkii ugu weynaa ee bariga dhexe laga maamulayay dhulka ayaa la dhigay. Iiraan waxay awooday inay burburiso baa leeyahay. sidoo kale Urdun, saldhigga Al Muwafaq Al Salt, waxaa leeyahay isaguna waxaa ku dhacay waxaan caadi ahayn. Bahrain, iskaba dhaafkaa waqti hore baaba lagu luqluqday baa leeyahay. haddaba warbixintu waxay tilmaamaysaa xaaladda in Mareykanku jiqay ku tahay oo aan sahlanayn. geesta kale, dowladda Imaaraadka Carabta waxaa leeyahay dagaalkii 40 cisho socday aad baa garab istaag loogu sameeyey. warbixinta ayaa qoray. Axios waa taqaanaan oo website sirdoon Mareykanka laga leeyahay. shabakadaasi waxay leedahay dowladda waddankaasi Imaaraadka Carabta ayaa garab istaag aad u xoogan la siiyey kadib markii gantaalo xoogan halkaasi lagu garaacay. Israa'iil ayaa la sheegay khasaare xoogan inay markaasi gaarsiisay, isla markaana weeraradii ugu xooganaa halkaasi ay ku qaadeen. warbixinta ayaa waxay sheegaysaa Israa'iil inay markaa u dirtay nidaam casri ah oo difaacyada cirka ah. haddaba warbixintu waxay intaa ku daraysaa sida aad shaashadaba ka arkaysaan, website-ka Axios ayaa daabacay warbixintan. warbixintu waxay leedahay Israa'iil waxay awoodday inay geyso gudaha Imaaraadka Carabta gantaalo halis badan iyo weliba nidaamka difaaca cirka ee loo yaqaano Iron Dome. markaa xogihii ugu dambeeyey ayaa markaa idinkaga soo koobaynaa warbixintaasi lagu daabacay halkaa. haddaba nidaamka halkaa la geeyey waxaa la yidhaahdaa gaashaanka birta ah ama Iron Dome ama qubal xadiidiya. waxaa loogu talagalay inay ka hortagaan gantaalada Iiraan, laakiin Iiraan waa ku luqluqatay ayaa leeyahay. haddaba sidaanu daawanay sawiradu wixii halkaa la geeyey macnaha waxay awoodi waayeen inay celiyaan, maxaa yeelay khasaarihii gaaray waad arkayseen iyo weliba Iiraan siday u awoodday inay duqeyso dhammaan goobahaasi. tani waa markii ugu horreysay Israa'iil la sheego
nidaam difaaca oo ay leedahay in dal kale u dirto markaa. waxaa la sheegay in loo adeegsaday sidii looga hortagi lahaa gantaalada Iiraan. Imaaraadka waxaa markaa lagu weeraray 550 gantaal oo plastic iyo cruise isugu jiray. tiradan ka hadlayno waa 550 gantaal oo markaa isugu jiray kuwa cruise-ka iyo waliba kuwa kale ee plastic loo yaqaano. xoguhu waxay intaa ku darayaan in qasaaruhu uusan ahayn mid sahlan aaduna markaasi u baaxad lahaa. Israel waxay u aragtay baa yiri markan Imaaraadka ay tahay inay difaacdo markaa. Israel waxaa la sheegay inay duqeyso goobahaas xitaa ay ka duqeyso goobo gudaha dalkaasi Iiraan markaa. marka Iiraan marka ay lahayd gudaha Iiraan Imaaraadka baa laga soo weeraray. waxaa leeyahay warbixintan hadda la soo bandhigay waxay muujinaysaa baa leeyahay markaa jawaab ahaan Iiraan inay markaasi weerar ku qaadaysay. waliba Khaliijku si looga hortago baa la yiri qasaare gaaray Imaaraadka ay isku dayeen halka gantaalada inay u geeyaan. Imaaraadka wadamada Khaliijku waxaa leeyahay hadda way ku kala qaybsayeen Israel in markaasi iyadu sidaas loo dhaxgalo oo ay awoodo inay u dhaxgasho markaasi. xogtu waxay intaa ku daraysaa isla markaana warbixintu ay leedahay Imaaraadku aad buu ugu janjeeraa Israel marka laga hadlayo sida warbixinta Axios ba lagu daabacay oo ay sheegayso markaa. warbixintu waxay intaa ku dartay dowladda Imaaraadka Carabta in wadamo kamid ah Khaliijku ay ku qanciyeen in sidaas aysan ugu fogaan, laakiin haddana waxaa leeyahay dhammaan dalabyadaasi dhag jalaq uma siin. mas'uuliyiin diblomaasiyadeed oo Imaaraadka waxay sheegeen cidda saaxiibka ay leeyihiin iyo waliba kuwa cadowga ku ah inay kala garteen iyagoo ula jeeday dowladda Imaaraadka Carabta in la soo weeraray qasaare xoogana Iiraan ay soo gaarsiisay. laakiin haddana Iiraaniyiintu warkoodu cad yahay waxay leeyihiin anagu cidiina soo weerarta waan weerareynaa. gudaha Iiraan haddii aanu aadnana booliska dalkaas Iiraan goordhaweyd waxay gacanta ku dhigeen sirdoon kale oo markaa la shaqeynayay Israel isla markaana laga qabtay deegaanka Rastaan. waxaa leeyahay halkaasi waxa uu ka gudbinayay macluumaad xasaasi ah waliba sawirro ayuu qaaday goobo xasaasi ah waxaana uu gudbinayay Israel. baryahanba shaqo adag inta dagaaladu ay markaa taagan yihiin Iiraaniyiintu waxay wadaan shaqo aan caadi ahayn waxaana ay beegsanayaan cid kasta oo lagu tuhmayo in macluumaad sirdoon ay markaa sameynayso isla markaana ay gudbinayso markaa. waliba internetka intooda badan dalku waa ka jaran yahay maxaa yeelay xaalad dagaal bay ku jiraan waxaanay ku qasban yihiin si dalka loo difaaco gebi ahaanba maslaxadda guud laga eego bedelkeeda intii khatar kale ay la kulmi lahaayeen. haddaba wararkii ugu dambeeyay markaa sidaas ayaa markaasi ay sheegayaan sida faahfaahinadii ugu dambeeyay ay ku waramayaan. haddaba goordhaweyd Cabbaas Caraaqji wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan wuxuu gaaray magaalada Islamabad ee dalkaasi Pakistan. ujeedada halkaas uu gaaray waxaa lagu sheegay inay ahayd hadafka guudna uu yahay sidii wadahadalada markaasi loo ambaqaadi lahaa. Pakistan 24 saac wax ka yar ayuu isagu 2 jeer booqday. booqashadiisii ugu horeysay fariin ayuu ka waday dowladda wadankaas Iiraan oo mowqifkeeda iyo sidoo kula hadli karaan Mareykanka. way gudbiyeen kadibna waa uu isagu ka gudbay wuxuu tagay Oman. hadda Oman buu ka dhamaaday kadibna wuxuu ku laabtay Pakistan. waxaa leeyahay jawaabtii Mareykanka loo gudbiyay ama fariintii la siiyay jawaabteedii ayuu hadda markaas isagu u helayaa. lama garanayo waxay noqon doonto waxaa laga yaabaa in la gaaro heshiis maxaa yeelay Mareykanka xaalka jiq ayuu ku yahay. warbaahinada iyo warbixinada dhan waxay tilmaamayaan Mareykanka in hadda wixii ka dambeeya dagaalka ay adag tahay inuu ku soo noqdo markaa. waliba Iiraan si aan caadi ahayn ayay dagaalka dhiigbax ugu sameysay marka laga hadlayo dhaqaale ahaan dowladda Mareykanka. Mareykanka marka isaga hadda ka cararaya oo raba dagaalka si inuu uga baxo wuxuu taagan yahay Trump mar meel iga bixiya markaa. laakiin ma joogsanayo mar walba isagu waa hadlaya waxbuu sheegayaa laakiin marka Cabbaas Caraaqji waa ka isagu warkiisu cad yahay waxa uu la kulmay Caasim Muniir baa leeyahay ujeedaduna waxay tahay wareegga labaad ee wadahadalada in halkaasi laga sii ambaqaado markaa. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isagoo goordhaweyd waa hadlay waxaana uu tilmaamay dowladda wadankaasi Shiinaha inay garab istaagi karaan oo caawimaad ay siin karaan dowladda Iiraan. wuxuu rajabeel anigu kama qabo kamana xumi haday siinayaan yani waxba waa ka qaadi waayay Shiin wuxuu la hadlay Siin ama Shiinaha waxaana uu ku yiri waxaad siinaysaan garab istaaga ka daayay laakiin Shiina waa og yahay biritoole marka laga soo dhamaado Iiraan in isaga loo socdo oo marka Iiraan kaliya aysan ahayn waayo naftadiisa isaga qaata. haddii halkaasi laga soo cunaqabateeyo horena Venezuela looga cunaqabateeyay wadamada Khaliijka kale ka joojiya haddii la hore ka joojinaya markaa.
tirada ugu badanna wuxuu ka qaataa Iiraan marka uu ka warqabaa wax walba uu sameynaya sidii nidaamkan uu ku sii jiri lahaa. Trump ayaa mar kale calaacalka ka dhamaaday. Hadda wuxuu ka hadlay arrinta NATO. Wuxuu leeyahay nama caawinin oo dagaalka Iiraan iyagu naguma caawin. Waxay ahayd dagaalkan Iiraan inay nagu caawiyaan. Laakiin waa ka odagu waxa waaye calaacal ma dhaaf. Waa hadlay mar kale wuxuu yiri dagaalku waa soo gabagaboobi doonaa dhawaan waliba waan guuleysan doonaa. Wada hadalka daraad isagoo wafdigiisa dir raba iyo Cabbaas Caraqji albaabka diyaaradda uu ka xirto Iiraanigu Ammaan baan u socdaa lamana kulmayo kuwane iga daay markaas buu Ammaan isagu u duulay kadib uu isagu hadlay wuxuu yiri waan kansal anigu wafdigii halka aadi lahaa taasoo ku tusinaysa marka hadda hogaanka iyo goolka ciyaarta inay marka hayso Iiraan marka Iiraan baa hogaaminaysa baa leeyahay dawladda qadarna waxay tiri waxaan bilaabeynaa xiriiradii markaas Caraqji iyo uu la xiriiray uu la hadlay markaana sida xiisada lagu dejin karo iyo mandaqada deganaasheeda looga shaqeyn karo marka maxaa la dhihi jiray gacanta gooyin weydeed waa la shumiyaa Soomaaliya marka khaliijku dantoodu waa garanayaan baa leeyahay markan haddaba xogii ugu dambeeyay waxa leeyahay dawladda wadankaas Iiraan waxay soo bandhigtay sawirro hor leh oo laga helay mid ka mid ah maraakiibtii iyagu gacanta ay ku dhigeen markabkan ayaa muujinaya in iyagu ay marka la wareegeen ciidamada ilaalada kacaanka dalkaas Iiraan waxayna ku eedeeyeen in dawladda ama nidaamka Israa'iiliyiintu uu ka yimid waliba aad iyo aad markaasi uu la shaqeeyay maadaama ay xiriir u leeyahayna gacanta ayaan ku dhigaynaa bay leeyihiin wararka qaarna waxay leeyihiin Israa'iil ayaaba toos u leh markabka marka laga hadlayo haddaba faafaynadii ugu dambeeyay ee laga helay ayaa waxay muujinayaan waqti xaadirkan in dawladda wadankaas Iiraan iyadoo si cad u sheegayso markabkan inuu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan iyo gacanta ay ku dhigeen waxaana ay soo bandhigeen muuqaalo kala duwan ciidamadii kacaanka oo koraya isla markaan halka ugu sareysa dusha ay taagan yihiin wariyaashan halkaasi ku marti qaadaya Press TV ayaana baahiyay dawladda wadankaas Iiraan ay leedahay hogaamiyaha kooxda lagu magacaabo Faylaqul Qudus oo ah guuto dibadda u qaabilsan Iiraan isla markaana uu maamulo ninka la yiraahdo Ismaaciil Qaani ayaa markaas isagu hadlay waa kana Ismaaciil ninka 7 ruuxlaha baa la yiraahdaa isagu in badan bay Israa'iil isku dayday baa leeyahay waa ka badbaaday dadka qaar waxay leeyihiin waa basaas waa sidaasi laakiin waa hadlay Ismaaciil wuxuu yiri midaynta saaxooyinka oo dhan wadamada xulafada nala ah inaanu midayno oo hadii ay noqon Yemen hadii ay noqon Lebanon waxa uu sheegay maanta inay ka midaysan yihiin in ka badan sidii hore wuxuu yiri waan garab istaageynaa xisbiga oo Mareykanka ayaa ku shardiyay in Iiraan ay ka joojiso garab istaaga Xisbullah ay siinayso iyaguna waa hadleen waxay yiraahdeen Xisbullah kama kaftameeno sidii aan u garab istaagi jirnay si ka daran ayaan u garab istaageynaa marka cidna looma joojinayo bay leeyihiin reer Iiraan warkoodu waa cad yahay waan garab istaageynaa waan wadeynaa bay leeyihiin haddii aan eegno dagaalyahanada Xisbullah goorraweyd wakaalada wararka ee Tasniim ayaa baahisay Xisbullah inay beegsatay taangi nooca Merkava oo Israa'iil marka ay leedahay isla markaana soo galay deegaanka Tayyiba ee koonfurta dalkaasi Lebanon waxa lagu dhuftay baa leeyahay diyaarad drone aan duuliye lahayn isla markaana khasaare baaxad leh ayaa gaaray maanta waxa dhacay khasaare xoogan oo ciidamada Israa'iiliyiintu soo gaaray askari ayaa laga dilay tira kalena waa laga dhaawacay sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan warbaahinada dhan ay tilmaamayaan qoraalkan aad arkaysaan telefishinka Al Jazeera ayaa baahiyay wuxuu leeyahay ciidamada Israa'iil ayaa waxa ka geeriyooday ama laga dilay askari 6 kalena waa laga dhaawacay dagaalo foolka-fool oo la galeen dagaalyahanada Xisbullah kuwaas oo iyagu markaasi dagaalo kula galay koonfurta dalkaasi Lebanon haddaba maxaa ka soo bixi doona booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Cabbaas Caraqji uu isoo ku joogo magaalada Islamabad waana markii labaad 24 saac wax ka yar uu isoo ku tago Pakistan haddaba fikirkaaga commentiga hoose nagula wadaag channelka subscribe saaro si share gare meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal muuqaalka like ku dhiirigeliya oo idinkaga mahadcelinaynaa si aad ugu xirantiin barteena aad like ugu dhiirigelineysaan oo aad si share gareyneysaan oo aad sidoo kale adeega superka aad nagu markaa garab istaagaysaan mahadsanidin saaxiibayaal